سهر سرالو سو agaasima ayaa maanta lagu qabtay barxadda weyn ee hotel Xaaji Askar munaasabadan oo daaranayd magacaabistii uu dhawaan ku magacaabay hoggaanka sare ee xisbul xaakimku maamulka heer gobol ee xisbigaasi kulmiye taasoo si rasmi ah loogu kala wareejiyay maamulkii hore iyo maamulka cusub ana xafladan goobjoog ka ah xogayaha guud ee xisbiga wasiirka wasaaradda warshadaha qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada madaxda xisbul xaakimka maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo guud ahaanba taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ku dhaqan gobolka cagaaran ee Gabiley waxaana dhammaanba mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay hadaladoodii ka mid marka laga yimaado qolada cusub waxaan leenahay waa la idinka mahad celinayaa taariikhdaana idin xusi doontaa dadaalka aad xisbiga soo geliseen waxaad tihiin koox ku guulaysatay koobkii Soomaaliland 2010 waxaad ku guulaysateen xisbigii ugu mudnaa xisbiyadii tartamayay sidoo kale maanta waxaad goosanaysaan midho qiimo badan oo horumar iyo waxqabad oo xisbigii iyo dadaalkii aad geliseen ka yimid hambalyo waxaan idinka rajaynaynaa waayo aragnimadii aad ka dhaxasheen shaqadii aad soo hayseen inaad uga faa'iidayn doontaan xubnaha xilka idinkala wareegaya sidoo kale waxaan soo dhawaynaynaa inuu u ducaynaynaa xubnaha xilka loo wareegay waxaan leenahay waxaad u eegtiin xubno ku habboon xisbiga oo aanu rajaynayno inay ka midho dhalin doonaan oo sidaa qolada hore ay ugu guulaysteen in madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo madaxweyne qaranka ka noqdo inaad idinkuna ugu guulaysan doontaan in mudane Mujaahid Muuse Biixi Cabdi noqon doono madaxweynaha soo socday Soomaaliland xisbiga kulmiye runtii waa xisbi kusuntan horumar iyo waxqabad oo cid kastoo Soomaaliland ay maanta ka marqaati kacaso inaguna gobol ahaan aynu ka marqaati kacano oo aynu mudhihiisii goosanay marka laga yimaado horumarka degmooyinka ka dhex socda ama ka suura galay intii kulmiye guddigii hore ee kulmiye iyo guddiga cusub ee hadda loo soo magacaabay waxaan qabaa anigu waxaa mahadnaq mudan oo inaynu u mahadnaqnaa oo aynu nidhaahno waxay soo gaadhsiiyeen halkii loo baahnaa ee dhammaanta isukeed keentay ah guddigii hore halkan xilka hayay waxaan ka mahadnaqayaa waxaan ka markhaati kacayaa in amiin iyo tiimkiisii ay ahaayeen kuwii gaadhsiiyey ee ka dhigay Gabiley inay noqoto kulmiye qofka xilka soo haya haddaan u mahadnaqin wuxuu qabtayna ilaahayna kuma nahay aynu u mahadnaqno qolada cusubna waxaanu leenahay kelmad kale ma lihine ilaahay xilka haydin fududeeyo waxaananu idinku ognahay kelmad kale maahee waa midnimo inaanu Gabiley waqti iskaga qaadin ee gobolada kale ka taangareeyo oo aynu codka isugu hagaajino intaynu garaangarnaan halkaas aho gobolada qaadayna Allahu Akbar xukuumadda Soomaaliland ha guulaysato xisbiga kulmiye ha guulaysato madaxweynaha mustaqbalka mudane Muuse Biixi Cabdi Mujaahid ha guulaysato waxaan wareejinaa oo ku saabsan guddigii hore ee gobolka oo maanta xilka ku wareejinaya guddiga cusub ee gobolka markaa runtii hadal badan oo laga yidhaahdaa ma furna waxaa weeye mahadnaq ballaaran in loo soo gudbiyo guddigii hore sida fiican uga soo shaqeeyey xisbiga ee halkan ku soo gaadhsiiyey isku duubnida wada shaqaynta iyo isku duubnaanta guddiga cusub ee hadda la doortay waxay ku dardaarmayaan sidii hore loogu dardaarmay inay si fiican ugu wada shaqeeyaan xisbiga oo ay ku gaadhsiiyaan guushii hore xisbigan iyo reer Gabiley isku maayo maanta xisbiga reer Gabiley waa xisbiga halkii ugu badnaa ka helay dhammaan dowladda Soomaaliland maanta laakiin si laga sugayo waxaa laga sugayaa inay laaban afkar badan intii hore ee dalkii hore munaasabadan qaaliga ah ee maanta aynu isugu nimidnay ee aynu isbeddelkooda samaynayna si hawlaheennii ay u sii socdaan anu xisbiga kuma cusbi in xisbiga kulmiye ku cusubna ma ihi in xisbiga kulmiye soo dhex joogay ku soo tabcay xooggiisa iyo tabaciisa iyo maskaxdiisa oo hore ugu soo horay muddo badan baan ahaanu markaan si xoogaan waan si taabto waxa cusub kaliya waa xilku ma cusub xilka laga dhigo waa cusub laakiin kulmiye kuma cusub aniga
وحوجا هذا كتابته حسب الكلية وحوم باية مانتا جيب الصبح باية ولكن أمين وينشر مانتا حسب الصوت معين ومدبر الصور حسبهم وهالجنة وصور قري وجد قابل يجد نير بوفري صور حسبهم يصور بينها ولا يمسيون مانتا حسبهم كذا هالنصور ولا يمسيون أنا مو بعرف كسي عم بقاليا أنا ولد ميل تاج روح قعدت ويا يلا يا جماعة روح على يقربها إن برنامج كحس بيقول أبوسوا حاجة دموعها ولا يقربها أبوسوا حاجة وعبد الله داير تلفزيون كعالمي الصومالي channel قبلي